بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يا مهندس كلا مركلي نجو كل مية برامج كلن كشبلي وبرامج ديني وتضواد والبعض كلا سعتان TV عالمي Somali channel وحنا غير فربنا الله سيء برامج كان وقت جي سقالي جاوهرا إسلام كان ومد مسلمين الصومالية جوابوا في كسية سؤالها ينسوي ديان شيخ محمد شبلي وبرامج كان أنت بدن إن أجري حسنات أن لسوكو بكرن ربها كسية إن وقت جي سقالي جاوهرا ومد الصوماليات وحنا أنت بدن ددوينها يداودياش الصومالي channel سؤالها ينسوي دين يعني ينوجس ودران عوانا ذكلا كلن كشبلي Somali channel.tv يعوانك فيسبوك وكلنك شبلي Somali channel وانا حلقتي لباتني لحاد كنسو دوادا مركلة برامجك كلنك شبلي شيخ كسو برامجك. شكرا جزاك الله خير. سؤالوات بيفر بديين ينسوي دين داودياشا وغورين مدو غوري سوحا وقبلا والسلام عليكم ولا لا ديان دين سلام يا دمان داديها برامجك يا شيخ وحن ربي هينوحف دي يا شيخ لدرتي ان وجعلنا هاي ربي عافماد عمريgiisa ha u dheereeyo sida wanaagsan ee uu diinta inoogu bayaamiyo magacaygu waa bintu Cabdullaahi waxaan ku noolaa North America waxaan kamid ahaa dhalinta wax ka barata high schoolka marka waqtiga salaada duhurka la tukanayo xiisada ayaan ku jira waxaana suuragal ah inaan ka soo baxo labadii iyo qadar 10 daqiiqo sheekh ma ku tugan karaa gurigeyga markaan dib ugu laabto alxamdulillah wassalatu wassalamu ala rasuulillahi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd marka koobaad Allah ku jeclaado wixii khayran Allah nagu kulmiyo marka labaad salaadu waqtiga ay leedahay bilow iyo dhamaad buu leeyahay waqtina waa xilliga ay soo gasho waqtina waa xilliga ay baxdo qofku hadduu shaqada iyo xiisadii ama casharkii kaga soo aado xilli kamida inta dhaxdeeda uu ka soo bixi karo waqtiga uu soo baxaba salaada uu tukan karaa ama guriga ha noqoto ama goob shaqo iyo goob waxbarasho ha noqoto salaadu haday 5 saac soo gasho ama 11 waa labada ama saddexda baxayso waqti kasto kamid muddadaas waa tukan kartaa waa waajibku muwasaca wax yiraahdaan waxa uu fiican waqtiga horaantiisa inta kalena way banaan tahay inta waqtigu ka bixin ka dhamaanin marka gabadhu waqtiga time-ka ay sheegtay waqtiga ay sheegtay wadanka ay joogtaan anigu ma kala garanayo laakiin intaan cimirada westernka iyo galbeedka iyo bariga foka aqinay xilliga kulaylaha duhur uu jooga waqtigaas xilli laba duhurnimo la yiraahdo casarka wuxuu soo galaa 5 galabnimo iyo 6 galabnimo iyo soo gala waxaan isleeyahay Europe iyo North America ila Australia New Zealand ma kala duwana cimiradu samarka iyo winterka qaboobaha iyo kulayluhu salaaduhu waxay soo galaan kowda iyo wixii ka dambeeya duhurku soo galaa laakiin waxaan filayaa xilliga qaboobaha ba xilli 11 iyo 5 saac iyo meelaha intay soo galaan ba laga yaabaa 8 saac xilliyada loo gaaro in casar ba la gaaro maghribkana 4 galabnimo la tukado salaad subhana hal saac subaxnimo la tukado maalintuba in yar oo la quraacdo la qadeeyaba ayna ka badnayn halka habeenku inta uusan ka badnayn xilliga kulaylaha ama samarka la yiraahdo haddaba hadii ay qofku samar iyo winter midku doonay ha joogo saacaday doonay salaaday doonay ku soo aade bilowgii waqtiga ila dhamaadka inta u dhaxaysa hadii uu ka dhamaanayo mashquulku oo ka gaari karto salaada waqtigeedu waa haleeshay wixii ka soo haray waa laba mid hadaan waqtigii salaada bilow ila dhamaad aadan firaaqa u helaynin laba mid way inay tahay wax marmara iyo inay tahay wax joogta hadii ay marmar tahay dib ma laho salaada ka dambayso casar ama tii ka horeysay oo duhur iyo maghrib iyo cisha waa israacin kartaa xadiidka ibn Abbas baana saaha nabiga muxuu saa u yeelay markii la yiri muxuu ka dan lahaa salaadu isagoo Madiina joogan roob jirin jamciyay araada an la yuharrija ummata madisa ciriiri dareemin oo marmar duruuftii qabsata salaada la dib dhigi kara ama la hormari karo tilmaamay haday joogta noqoto qofku laba xaalad mid buu noqonayaa qof awooda
inuu baxo oo tukado ama meeshaba ku dhex tukado dee salaada wuu tukanayaa gudaha ku tukaya iyo banaanka ku tukayaaba qof ay ka soo gaaraysa dhibaato intaa ka badan oo ka baqaya sida uu yahay ee uu u fadhiyo u tukanayaa saasayna taabiciinta in ma badan yeeli jireen xilligii umawiyiinta gaar ahaan marwaaniyiinta xilligoodii salaada waqtigeedii la dili jiray nin baa khudbaynaya iska hadlaya salaadii waqtigeedii dhammaanaya ninkii isdhaqaajiye hadal yidhaahdana qortaa loo dheeraynaya loo casaynaya xajooyinka cudurrada iyo culaysyada waqti dhow bilaabanin taabiciinta rag badan waxay leeyihiin salaatul khawf oo kaleeto ama salaatul musaafir oo kaleeto annagoo fadhfadhina baan madaxa ka tukan jiray oo ka rukuuci jiray oo ka sujuudi jiray waxayna ahayd sababihii cabdiqaadir uu diiday waagii hore inaan salaada jamaacadu hadday ku dhaafto aan jamaaca labaad la tukan jirin oo mucaarad baatiin baa la isdhihi jiray ninku keligii inuu iska tukadiyo inuu iska cararo oo guriga ku tukanaya ahaa jirtay marar badan marka nuxurku hadduu waqtiga uun ka soo gaari kartana markaa soo baxdaba tuko haddana kaba soo gaari karin oy marmar tahayna waa israacin kartaa haddayna marmar ahayd ay joogto tahayna hadaad barnaan ku tukan kartana ku tuko haddii ay dhib ka weyn kaa soo gaarayana baabu salaati alkhawfi baa ku banaanaan intaa wixii ka badan culimmada meesha idinla joogta duruuftiinana hoos og baa xaaladahan gaarkaa qiimayn karta bilahi towfiiq